dibadbaxani oo ay dadku kaga soo horjeedeen go'aankii ay dawladda Soomaaliya ka qaadatay heshiiska maalgelineed ee dekada Berbera isla markaana ay wada galeen dawladda Soomaaliland shirkadda DP World iyo Ethiopia ayaa waxa ay dadka ku dhaqan caasimadda Hargeysa isugu soo baxeen fagaaraha beerta xorriyadda halkaasi oo iyaga oo wata calaamo iyo astaamo ay ku muujinayaan dareenkooda ay waqti saacad ah taagnaayeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda oo halkaasi kala hadlay dadweynaha ayaa uga mahad celiyay sida ay u muujiyeen rabitaankooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye maayirka caasimadda Hargeysa xubno ka mid ah golaha wakiilada qaar ka mid ah hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah iyo mas'uuliyiin kale ayaa halkaasi kala hadlay anigu maayir ku-xigeen xildhibaan oo la doortay baan waxa gacantayda ku kalifeynaan uulahi ciidamada qaadano waa dagaal weey waxbaanu iska xiliinaa haday xabad noqoto iyo haday af noqotoba Soomaaliland maanta waa alxamdulillah sidoo madaxweynaha uu sheegay dekada Berbera mare Soomaaliland baale xabbaanu leenahay waa dawladda Soomaaliland baaro ka talisa iyo hunguraanin iyo ka galin hunguraayo ka qabanin dalkeena iyo dekenaana iyo magaalada iyo sarifkeena iyo istashigeena inaga iskale waxana loo qabanayaa oo ay dadkaasi isku soo baxeen ay taageerayaan heshiiskii saddex geesoodka ahaa hadalkii ka soo baxay ee uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ansixintii golaha wakiilada ay ku ansixiyeen heshiiskii saddex geesoodka ahaa intaasay ummaddu isku soo baxday inay garab taagan tahay waxa kaloo isku soo baxday inay ka jawaabto hadalladii ka soo yeedhay farmaajo iyo dawladdiisa taagta daran ee xamar hostajka ugu ah ciidamada amisom iyo dhammaan muxuu ahaa xubnihii isku sheegga golaha qaran waxay yidhahaan golaha shacabka ee yidhi waxaanu joojinay ama tirtirnay heshiiska Soomaaliland cid adeegaysan mayno xaashaa lilaahi leenagamana filaayo laakiin cidiina soo doonata madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri dagaal baad ku dhawaaqday anana waa ku sugaynaa soo sidaa ma aha dibadbaxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay madaxda dawladda Soomaaliya toddobaadkii hore meel adag iska taageen arrinta ku saabsan heshiiska maalgelinta dekada Berbera sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliland uu jawaab uu ka bixiyay arrintaasi uu ku muujiyay in aanay Soomaaliland u joojinahayn cid kasta oo faragelin ku sameynaysa dalkeeda Salmaan Cabdi Cali warbaahinta STN Hargeysa